الرحمن الرحيم وما سنتها محيدين جامع أنا مقعي وحالي عبد السعيد محمد جامع كنا شيء قبل كمدق كبر باري مقالة مقدشو قارهان شيغان يبون ديره كان مدها عيارتوydii xulka qaranka tenniska yani nolosheeda inta badan halkaan aan ku qaatay arta waxay igu dhiirigeliyay laba macallin oo mid Allah u naxariistay dhintay oo la oran jiray Ali Maxamuud Siyaad Ali Americo iyo macallinkaydii kooxda madbacadda qaranka Saacad Cumar Geedi ayaa igu dhiirigeliyay waxaan ku bilaabay halkan anigoo ballboy ah kuwa ku dhalinyarada banoniga soo qabata dabadeedna labada macallin baa ay gacan qabtay dabadeedna waxaan ku biiray kooxda madbacadda qaranka markaan ku biiray muddo aan ciyaaraynay waxaan ku biiray afarta ciyaartooy ama shanta ciyaartooy ugu fiican qaranka Soomaaliya oo kubadda tenniska way badnaayeen Saacad iyo علي محمود سياد ويل أورنجري عبد الناصر برهودو ويل أورنجري حراد oo isagana Allah u naxariistay ku dhintay wadanka la yiraahdo bahal Shiinaha waxa jiray gabar la yiraahdo Duniya Axmed Baraxow oo iyadana ku dhimatay Canada Allah u naxariisto iyo wiil dhalinyaro isaguna Kamaal la yiraahdo waxaan maleeyahay inuu ku nool yahay Kenya laakiin reer Mareykan ahaa macallin hadda ka hor halkan isaguna nin ciyaartooy halkan xamar ku dhintay la oran jiray Cabdi Naasir iyo walaalkiis aan hadda magaciisa hilmaamay wiil isaguna la yiraahdo Mahad Salaad isaguna tenniska in la ciyaari jiray waliba isku kooxayn waa badnayn laakiin kooxda qaranku waa tirsanayaan rag adigu shan ah baa ugu fiicnaa aniga iyo Axmed Xareed iyo nin la oran jiray Baroodo iyo Kaamil iyo hadda kale waqti waa ka soo wareegtay dhowr iyo 30 sano waan ilaa rag waan kala ilaa Saacad Cumar Geedi ciyaarta tenniska kaalin muhiim ah ka soo qaatay ilaa yaraantiisii ilaa macallin qaran ilaa macallinkii kooxda intaba uu ahaa kooxda gabdhaha iyo wiilaba labadaba uu soo tababaray kooxdayda madbacadana isaga macallinka koowaad ahaa qarankana labadaas Ali Maxamuud Siyaad iyo waxa ahaa ninka la yiraahdo Allah u naxariistay iyo Saacad Cumar Geedi horyaalka inta badan kooxdayda madbacadda qaadi jirtay kooxda waxaan Cheyo ayaa ayaguna concurrent uga mar naga qaadi jiray mar ayaga ka qaadi jiray laakiin labada kooxood baa waxay isku ahaayeen iska yani ciyaaraha ugu wanaagsan tennisku kubadda cagta way ka adagtaa basketballkana way ka adagtaa waxa la yiraahdaa individual game waa ciyaar ku xiran qofka ma ahan ciyaar wayna ka daal badan tahay energy-gana way ka dhibaato badan tahay sababta waa ciyaar aad kaliga ciyaaraysid bardaba waa jiraan oo laba loo ciyaaro iyo ciyaar mix daba loo ciyaaro gabar iyo wiil laakiin ciyaarta marka la ciyaarayo single-ka la yiraahdo ama individual game-ka waa ciyaar adag kubadda cagta ninku intuu laadu soconaya laakiin tan socod ma jiro waa jira oo jilbaha oo kale meesha tan la yiraahdo bahalkii angawga waa jira garabka waa jira ila kubad service xoog la tuuraysa yani ciyaar sahlan ma dhaawaceedu aad buu u badan yahay dadka professionalka ahi sanadkii ma wada fayooba ama buruq baa go'aya ama jilib baa xanuunaya ama marka sidee loo ciyaaraa meeqa wareegay leedahay dhibcaana see loo tiriyaa dhibcaha waxaa loo tiriyaa kubadda ugu horeysa waa 15 point kubadda ku xigta
waa 15 point labada kubadda ku sii xigtaa waa 10 point kubadda ku sii xigtana waa gamekii hal game baa ku dhacaya laakiin waxay ku xiran tahay qofka ka soo horjeeda ama 15 afartan bay mar noqonaysaa waa in laba dhibcood aad horeysaa markasta markaad gameka ka qaadaysa qofka farsamo kale top spin baa jira back spin baa jira kubad xoog leh oo loo ciyaaro back spin baa jira slice baa jira kubad la gaabinayo slicekaas loo gaabinayaa jira yani qofka waxay ku xiran tahay adiga iyo ishaada iyo qofka ka soo horjeeda qaabka wax uga dhashanaysa sida waa ciyaar adag waa sida table tennis oo kale oo laakiin ka duwan qofka gaadma ku jirta ninka markasta markaad kubadda dheeraysid oo dhinaca dhigtid nin fudud hadduu yahay kubadaha qaarkood uma gaabin kartid waa inaad fiirsataa meeshuu ka jilicsan yahay haddii aadan aqoon meeshuu ka jilicsan yahay sideedana kubaddu markay dhinacaaga jirto markaba dee 80% waa lagaa leeyahay sababta dhinacaaga jirta laakiin markaad celisid oo dhinaciisa aad ku celisid 80% chance baad leedahay ninkaas kubadda wuu khaldi karaa ama ballanka u saari karaa ama shabaqu kaga dhici karaa shabaqa hadduu kaaga dhaco kubaddaasi waa kaa dhimatay hadduu taabto serviceka koowaad hadduu taabto waa lagu celinayaa laakiin ciyaarta soconaysa shabaqa hadduu intuu taabto oo xaggiisa ku dhaca ama xaggaaga ku dhaco xaggiisa hadduu ku dhacana adaa ka helay xaggaaga hadduu ku dhacana waa lagaa helay marka waa systemkaas ciyaartooygii dibadda tababar horta anigu waxaan u tagay waddanka la yahay suudaan baan muddo 4 bilood 5 bilood meelahaasaan ku maqnaa oo suudaan markaas waa nooga fiicnay ciyaaraha tenniska markaan ka soo noqday waxaanu aaday Liibiya laakiin ka hor waxaanu tagnay waddanka la yahay Djibouti waan ciyaaro u tagnay Liibiyaan u tagnay waxaanu tagnay waddanka la yiraahdo Ciraaq waa la tagay ciyaarihii Carabta Soomaalidu ciyaartooyda Soomaalidu yani dhaqaalaha la galiyo iyo dhaqaalaha waddanka Carabta la galiyo waa kala duwan yihiin darabara naga fiican bay helaan يعني opportunity badan bay helaan oo anagu aan lahayn anagu xoog baan ku soconay iyo isxilaqaan oo tababaradaas dadkaas helaan ma aan helay bahashatan waa tababar fiican hadaad haysatid dhaqaale fiican haysatid waxa weeye heer waad gaari kartaa laakiin haddii aadan dhaqaale fiican lahayn tababar fiican aadan haysan yani waa adag tahay saad nin ka tababar fiican wallahi ciyaar aan la ciyaarayna waxa noogu adkaa waddanka la yiraahdo Algeria-daas mara Liibiya kula ciyaaray waa ciyaartaas ciyaar noogu adkay kuwa aanu ka badanna waa jiray kuwa laakiin ciyaarta waxaana reebay anaga waxaana reebay Algeria ciyaartii Liibiya aan tagnay tii Djibouti aan tagnana waxaana reebay Djibouti kastoo aysan ciyaar sax ah أنا مالين وأنا كحنو سنة waxay nagu sameeyeen intay magaalo kale nagayeen oo hilib idaadna soo siiyeen baan horiyad sacan baan ciyaartii waa soo wadi weyna marka oo qaaca iyo shuban baan ku waaran yan xanuunsan ciyaar ma wadi karo anaguna halkan markay yimaadeen oo ciyaar u yimaadeen ciyaarihii carabta u yimaadeen baa anaguna ka aarsan anaguna moos baan ka dhajin moos baanu ka dhajin laba gacmo moos aan waxa soo dhignay erida hada ayaguna dhimaad moos ka u baahnaaye yani baan moos arkay ma ayaguna sidii oo kale noqdeen waa ka badin wallahi madaxii ciyaartooy ma ogtahay markaad ciyaartooy tahay adigu dadka oo imaanaya ma wada xisaab ma wada laakiin marka ciyaaraha international ka jiraan wasaaradda isboortiga waa imaan jirtay madaxdu waa imaan jirtay wasiirku waa noo furi jiray dad badan baa imaan jiray la dilay oo la oran jiray oo waliba shakhsiyan aniga aad ii soo gacan qabtay oo la oran jiray
magaciisa waa laqaasiyaan wallahi intaan anigu tennis ka joogay asaga haysan jiray ilaa aan ka tagay markaan ka tagayna de kolay burburkii baa dhacay yaasiin xaaji baa la oran jiray ninka ahligii baa ku dhintay asaga iyo macalinkaygii oo qarankaba علي محمد والله نيو noloshayada waa 4,000 baan qaadanay oo shilin 4,000 oo shilin markaas wadanku waa iska soo xumaanay qof ma ku filan karin laakiin ninkaas aan kuu sheegay yaasiin xaaji warshada lahaa garoonkan iyo xiriirka tenniskana haysan jiray ayaa aad noo caawin jiray wallahi duruuf adag wey saacad kaliya mahana wadanka oo dhan baa u baahan waayo adduunka ciyaaraha kani waa muhiim tenniska ah ilaa age baad ku ciyaari kartaa ilaa 70 baad ku ciyaari kartaa hadda wadanka aniga aan joogo 76 jir iyo 78 jir baa ciyaara waa caafimaad Soomaaliya caawimaad xitaa anaga dadka iyaga dibadda jooga inaan caawimaadaas wax ka geysano aad baa loogu baahan yahay oo aanu ciyaartooygii iyo garoomadii wixii laga qaban karo aan adduunka yani ula tagno sidii garoomada lagu hagaajin lahaa wasaaradda isboortiga laftigeeda waxaa laga rabaa inay xoog dadka ay dhalinyarada u gacan qabato garoonkii halkaan ahaa wasaaraddii olombikadii baa qaadatay garoonkii stadium Muqdisho 3 garoon baan ku lahayn waa baaba'san yahay degmooyinkan hadda lagu ciyaaraa degmooyinkana garoomo loogu talagalay tennis ma hatta ma qaadi karaan sababtoo ah qofku meel uu ku ordo oo kubadaha qaarkood ka socday kama soconin kara xaggaas kubadii markiiba waa dhimanaysaa kubadda koleyga size weyn laakiin marka la ciyaarayo tennisku waa inuu size weynaada sababta kubadda meel adag baad ka soo celinaysaa oo ka fog meesha kubadda lagu ciyaarayo baad intaad orodidaad ka soo celin karaysaa marka waa inaad size ku filan aad haysataa waa daawada ciyaaraha Nadal baan daawadaa Djokovic nin la yiraahdo Serbiana daawadaa Nadalku waa isagu waa Spain in la yiraahdo Roger Federer baan daawanaayo isaguna ah Switzerland ciyaartooy badan oo hadda soo baxay baa jira Carlos Alcaraz oo isaguna Spain u dhashay hadda wiil nin fiican ah jiro ciyaartooy fiican ah jira waa daawadaa ima dhaafto anigu horta wadanka 3 jeer baan imid 2011 baan imid markaas wax 3 isbuuc ka yar baan haystay aabahayo xanuunsan baan ugu imid magaalada Gaalkacyo markii xoogaa soo caafimaadana waa noqday shaqaan lahaa markii igu xigtana 2015 ahayd aabahay baa dhintay markaas xanuunkiisaan u imid markaasna waa noqday dhinacaas Puntland ma dhaafin halkan markaan imaanayay oo xamar imaanayay hadda waa fikradan qabay wax wada baa iska bedelay waxaan lahaa meel la isku dilayo oo ciyaal oo dadka wax dhacaya jooga oo la yiraahdo magaranaysa ciyaal weerar jiro oo laga baqo iyo waxa ma arag ciidan amaanka ilaalinaya iyo habeen way ilaa 12 habeenimo waxaan joogay Lido wax ila hadlay iyo wax weydiiyay iyo wax ku weydiinaya meesha dadku isaga xaga jooga isaga baarayada iska qabe waxba ma jiraan meesha wadakiina imaada anigu hadda raaxadan ku dareemayo uma malaynaysa meesha ka timid ka warqabowga heerkiisa wallahi wadankan ka imid laba problem baa haysta 6 bilnoodna Holland ba Europe oo dhan waxay u leeyihiin 6 biloodna naagaha qaawan 6 biloodna geedaha qaawan 6 bilood naagaha qaawan waa inta wadarku fiican yahay oo kuleel ku jiro 6 biloodna geedaha qaawan oo dhogorta ka dhacaysa geedka caleenta ka dhacaya geedkii qaawan baad arkaysa marka wadanka ama qabow haduu jirin roob marra waa roob iyo qabow
samarka caadiga waxaan 2 bilood dhamayn ama 3 bilood marka ugu badan 3 bilood baanu helnaa inta kale waa roobku markuu dhamaadana qabowga imaanaya marka waa ku nabad qabnaa aad baan loo soo dhaweeyay wax dhibaato kuma qabno kullayba wadamada carabta waa noo dhaama wallahi waxaan ku dhiiri gelinayaa dhalinyaradii waliba sportiga ahayd oo tenniska ahayd oo wadankan ka ciyaari jirtay inay waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan halkan wasaaradda sportiga iyada xilka koowaad saaran yahay oo yaani laga rabaa inay ciyaartooyga iyo dadkii dhalinyaradan badaha ku wada dhimanaya inay dhiiri geliso hadda dhalinyaro badan oo aad u badan oo yar oo la soo saarayo macallinkan soo saarayaan meesha ku arkay gacan qabasho badan oo waliba jecel ciyaarta inay daawadaan inay ciyaaraan aad baan ugu talin lahaa ninkaas in la caawiyo walaalahay oo ku nool gobolka Mudug asxaabteydii oo ku nool wadanka Holland asxaabteydii kale aan kubadda wada ciyaari jiro Morocco America iyo wadanka la yiraahdo Canada ku nool aad baan ma garanaysaa u salaamaya